waa qaybtii sideedaad sheekada Cavalieri oo si taxane ah looga daawanayo channelka aan YouTube-ka ku leenahay ee Waayo Arag. Haddii aad ku cusub tahay waan ku soo dhaweynaynaa, asxaabtii hore ula socotayna aad bay u mahadsan yihiin. Waxay qaybta hore sheekada inoo maraysay isfahamka quruxda badnaa ee dhex maray Axmed iyo walaal Kabiir. Sheekadii oo inoo sii socotana ka bogasho wacan. Asbuucyadii aan la joogay walaal Kabiir waxay ii noqdeen xusuusyo taariikhi ah oo noloshayda wax badan iga beddelay. Waxayna i bareen in la shaqaysto inay tahay wax wanaagsan oo weliba si daacadnimo iyo farxad aad ku qaabisho noloshaada. Markii ay inoo soo idlaadeen maalmihii uu dhakhtarka inoo qabta ayaan u dhaqaaqnay inaan u diyaar noqono oo waxaa la gaaray waqtigii qalliinka lagu fulin lahaa Habo. Waxaa si guud loo baaray Habo caafimaadkeeda si loo gudagalo qalliinka ama operation-ka. Waqtigii qalliinka waxaa ka halsan ilbiriqsiyo. Hadda Habo ayaa loo sii wadaa dhanka iyo saalada ama qolka qalliinka. Waxaan ka war helay walaal Kabiir iyo dhammaan shaqaalaha oo dhankayga u soo socda. La yaab ayay igu noqotay, waana rumaysan waaye sida walaaltinimada iyo kalgacalka leh ee ay ii garab taagan yihiin. Waxaan mooday riwaayad indhahayga ka hor daaran. Waxay isa soo taageen garbahayga iyagoo igu dhahaya, farxaddeennu waa mid, murugadeennu waa mid. Waxaan ku dhahay aniga oo farxad la ilmeynaya, intaad garbahayga taagan tihiin ma murugoon doono, abaalkiinana ma gudi karo. Wuxuuna ii ballan qaaday inuu igu garab siin doono wax kastoo garab aan uga baahdo. Wuxuu si qaas ah iigu ballan qaaday inuu qaabili doono wixii cunto ah inta aan isbitaalka ku suganahay. Waxaan ku dhahay, walaal haddii aan axsaan yar kuu sameeyey ma ahan inaad sidan oo dhan isku kalifto. Wuxuu si niyad furan iigu yidhi, ha iloobin inaad tahay martideenna. Ma waxaad rabtaa markaad waddankaaga dib ugu laabato inaad tiraahdo Hinduuska waa dad aan abaal lahayn? Mar kale ayaan isxabad gelinay. Saacado kadibna waxaa si badqab ah loogu guulaystay qalliinka. Waa dhextaal kooban. Waxaan codsan lahaa haddii aad la kulantaan dadkan camal inaad wax ka iibsataan, waayo waxay kaliya ka fikirayaan quutaliyoonkooda maalintaas. Lagana yaabee carruur iyo waayeel baa ku tiirsan shilimaadka yaryar ee miiskaas ka soo xarooda. Caawiya masaakiinta. Sheekadina saaxiibayaal ha inoo sii socoto. Bilooyin kooban kadib waxaan si badqab ah kaga soo baxnay isbitaalka. Bilihii aan isbitaalka ku jirnay waxaa waqti walba cuntada iyo wixii kale oo caawimaad yaryar ahba inala garab taagnaa walaal Kabiir. Waxaaba intaas sii dheeraa inay aad inoo soo garab qabatay gabar ka mid ah kalkaalisooyinka isbitaalka oo si xad ka bax ah ugu dadaali jirtay Habo Leyla, oo aad iyo aad qalbigeenna u kasbatay. Waxaana la oran jiray Anika. Anika waxay ahayd gabar aad u qalbi furan oo shaqadeeda si daacada u gudanaysa. Waxaa taa u dheeraa waxay khabiir ku ahayd sida qalbiyada dadka loo xado oo kalsooni badan looga kasbado. Markii ay Habo caafimaadkeeda soo wanaagsanaaday ayaan u garanay inaan siino lacag abaalmarin ah. Markii aan isku daynay inaan siino ayay aad inooga xumaatay oo ay inagu tiri, wanaaggii aan idiin sameeyey miyaan idinka iibsadaa? Maya, taas macquul ma aha. Si walboon yeelnay waan ku kari weynay. Markii dambe ayaan u soo iibinay hadiyad oo ay inaga guddoontay. Waxayna nagu tiri, waad iga guulaysateen. Waxaan dib ugu soo laabanay gurigii aan horay u deganayn si aan ugu diyaar garowno safarkii aanu dib ugu laaban lahayn dalkeennii hooyo. Laakiin ani ahaan waxaan jeclaa inaan dalkan isaga sugnaado, sida ay dadkiisu u wanaagsan yihiin, sida ay maciishadiisu u raqiisan tahay iyo jawiyadiisa aadka u macaan. Waxaan soo aaday guriga walaal Kabiir si aan ugu macsalaameeyo, aanna uga mahadceliyo sida uu ii garab qabtay. Markii aan u tegay oo aan u sheegay arrinta bixitaanka ayuu aad uga xumaaday. Wuxuuna igu yidhi, ma ahan wax aan jeclaystay arrintaad ii sheegtay. Haddana ma awoodo inaan ku celiyo, laakiin waxaan jeclaan lahaa intaadan bixin ka hor inaan dalxiis macsalaameys ah soo wada qaadano.
waxaadba mooddaa inuu dareenkayga dhan ay hoggaaminayaan ereyada kalgacalka badan oo uu igu leeyahay walaal Kabiir. Waxaan dalxiis qurux badan ku soo wada qaadannay goob aad u weyn oo dalxiiska loo diyaariyey oo magaalada duleedkeeda ah, laakiin waxaan goobta dalxiiska ka soo dhex qaaday taleefan nuuciisa ah Samsung Galaxy S4 ah, waxaana looga dul tegay kursi, laakiin waa uu dansanaa. Waxaan garaystay inaan qofkii lahaa ku raadiyo si aan wanaag uga kasbado qalbigiisa. Markii aan guriga ku soo laabtay oo uu saacado kooban jaajar ku jiray, ayaan shiday si uu u soo waco qofkii lahaa. Cabaar kadib waxaadba mooddaa inuu qof sugayay inta laga shidayo taleefoonka oo uuba isha ku hayay. Qof ayaa i soo wacay, markaa buu af Hindi igu yidhi, walaal waa iga codsi, taleefanka dib iigu soo celi, xasuus fara badan oo aan weheshado ayaa iigu jira Aniga luqadda Hindiga aad xariif uguma ahayn, laakiin waan fahmi karay. Markaa baan af Soomaali ahaan waxaan idhi, Hindidan sidaanay u calaacalayaan, marka hore may waxooda ilaashadaan. Markaabay codkii hore midka dheer ku qaylisa oo igu tiri, alla ma wiil Soomaaliyeed baa waxa alaabtayda ii hayo, iga raali noqo, ajnabi baan ku moodaye. La yaab bay igu noqotay aniga xataa qofka taleefan kale inuu Soomaali yahay oo uusan shisheeye ahayn. Wadahadal dheer kadib iyo isfahan ayaannu ku wada balannay inaan isugu imaanno salaada casir kadib meel cafeteria ah oo ka ag dhoweyd goobta caanka ah ee McDonald's. Daqiiqado ka hor ayaan tagay goobtii ballanta si aan naftayda jawi deggan ula qaato. Waxaa ii muuqday xasuusta jacaylkii aan kala lunnay. Mar waan iska qoslaa oo waxaan xasuustaa sidaan isku barannay, marna waan ilmeeyaa oo waxaan xasuustaa siday qalbigayga u kasbatay iyo sida fudud aan isku weynay. Markii aan saacad fadhiyey oo aan jawiga ka baxay oo xasuustayda aan dul heehaabayo, ayaa mar qura waxaa i soo ag istaagay 2 gabdhood oo ay igu yidhaahdeen, qofka aan ballansanayn ma adiga walaal? Anigoo inaan eego wejigooda ka yar xishoonaya ayaan ku dhahay, haa walaalo, soo dhowaada. Mar aan eegmaagay ayaan rumaysan waayey waxay indhahaygu arkayaan. Waxaan kala garan waayey inaan weli khiyaaligii ku jiro iyo inaan la joogo dadkii aan wada ballansanayn. La soco qaybaha kale sheekadan Cavalieri ka daawo janalkan Waayo Arag. Asxaabtaada ku soo xir oo muuqaalka inoo sheer gareeya.